الله الرحمن الرحيم شركان جرائد waxaan u qabanay inaan u mahad celino jaaliyada beesha gaal jecel ee ku nool wadanka Sweden kuwaas oo lacag $1,000 ah oo xaqal ciida u soo dhiibay ciidamada dib u xoreynta galbeedka Hirshabeelle waxay naga ballan qaadeen in ay si mug iyo miisaan leh uga qayb qaadan doonaan dib u xoreynta deegaanada beesha gaal jecel iyo horumarintooda iyo inay ka shaqeeyaan adeega bulshada intaasna way naga ballan qaadeen iyagoo markaas aan si kala har lahayn oo midaysan inay hawshaas uga qayb qaadan doonaan waxaan rabaa inaan meeshaan baaq ugu diro dhammaan beesha gaal jecel ee ku nool qaaradaha kala duwan ee dunida waxaan idin leeyahay deegaanada aad ka soo jeedaan cidna uma maqna ceelna uma qodna maanta waxay marayaan deegaanada oo aan ku abtirsanayno inay joogaan xilligii la dhihi jiray primitive age ama wixii loo yaqaanay al-umr al-bidaa'i oo noloshii bani aadamku uu ka soo bilowday midaan waxba doorinin in looga nool yahay deegaanada aan ka soo jeedno oo ku abtirsanayno xaqiiqa waxa ah dadka Soomaaliyeed maanta waxay noo soo qaataan miisaal xun oo dadka maamaha ayay noqotay markii laga hadlayo miisaalada xun oo qabaa'ilada Soomaaliyeed qaarkood sida beesha aan ka soo jeedno tusaale xun aan loo soo qaataa maamaha ayaa noqonay oo lagu maadeysto marka waxaa la rabaa inaad ku dayataan dadka walaalihiina ah oo beesha gaal jecel ee ku nool Sweden talaabadan hormuudka ah oo horumar kale oo ay qaadeen inaad ku dayataan oo aad iska daysaan jifa iyo waxyaabaha aad ku fakaraysaan meel lagu gaari maayo si midaysan inaad yani dhammaan deegaanada beesha ay degto oo dhan aad uga qayb qaadataan dib u xoreynta iyo horumarintooda intaas ay idin soo jeedinayaa haddana waxaan rabaa inaan lacagta ku wareejiyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda si uu asna ugu sii wareejiyo taliyaha ciidamada